عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa nin aad iyo aad u shaki badnaa oo ahaa nin hanti badan oo dhaqaale badan oo wax walba dunida Ilaahay dadku ku deeqay. runtii ninkan wuxuu ahaa nin aad iyo aad u shaki badan, aad iyo aad u khiyaaf badan. mar walba wuxuu jeclaa in uu qofka bini'aadanka ka shakiyo, mar walba wuxuu jeclaa in qofka asiga uu moodo inuu dhibaataynayo. dabeecadna way ka ahayd 24 saac waxaa ku jiray nin amoodid in weer lagu yahay ayuu aaminsanaa. maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday in uu shaqaalihii oo dhan uu isku shiriyo, isku keeno, uu dhaho aniga waxaan doonayaa nin walba inuu daacad u shaqaysto. qofkii aan cilad yar ku arkana mar walba waxaad ogaanaysaan in shaqadan ka cirin doono. runtii shaqaalaha marka ay daacad ku yihiin oo nadiif ay kugu shaqaynayaan ma jecli in laga shakiyo oo problem loo arko oo dhibaato loo arko. runtii ninkan dabeecad ay ka noqotay inuu shaqaalaha shaki ku abuuro ama shaki uu ka qaadaba, waa in nafsadiisa ku kalsooneen ayuu ahaa. runtii lacagta iyo magaca kuma siinayaan kalsooni haddii adiga uu Ilaahay ku dhalinin dabeecad, kalsooni iyo deganaan. ninkan wuxuu ahaa nin aad iyo aad u shaki badan, aad iyo aad u khiyaaf badan, aad iyo aad mar walba u moodo in shaqaalaha ay dhacayaan ama noloshiisa uu dhibaato lagu soo wado. waxaa dhacday asigoo shaqaalihiisa dhex fadhiya ayaa waxaa agtiisa soo istaagay ninka ugu sareeya shaqaalaha, waayo hadal ayuu jeedinayay, shaqaalaha ayuu khudbaynayay. hadal khaldan ayaa ka dhacay. hadalkii khaldana ayuu ninkii shaqaalaha booska u ahaa ama ninka ugu sareeyay wuxuu dhahay, mudane hadalkaas ka fiirso ama hadalkaas ka daa. waxaan kaa codsanayaa in shaqaalaha aad kula hadashid hadal wanaagsan. muxuu ahaa hadalka uu dhahayay shaqaalaha? ninka meherada lahaa ama shirkadda lahaa wuxuu dhahay, aniga waxaan ahay ninkiina ugu sareeya, cid i gaari kartana ma jirto. waxaad tihiin shaqaale, waa inaad shaqaalenimadiina ku ekaataan, waa inaad idinka ogaataan inaan idinka sareeyo mar waliba aad tihiin hoosteyda. runtii shaqaale walba haddaad tahay si walba aad u liidatid, nolol liidata aad ugu nooshahay, ma jeclid hadallada noocaas oo kale inaad maqashid, waayo waxaad ogaanaysaa booska aad taagan tahay. qofka bini'aadankana ma jeclay booska uu taagan yahay inuu ogaado. wuxuu jecel yahay nolol habiya inuu ku noolaado si ay noloshiisa mar walba ugu jiraato farxad. adiga qofkan kuu soo shaqo tagay maahan adiga qof ku baryaya. waxaad kala iibsanaysaan khibrad, adigna waxaad siinaysaa lacag. waayo qof bini'aadanka markuu ku soo dabarsi tago ama ku soo tuugsi tago oo ku dhaho wax isii, markaas ayaad dhahi kartaa adda, inkastoo aysan fiicnayn in la dhaho waan kaa sareeyaa. laakiin qof adiga ku soo shaqo tagay oo lacag kaa doonaya, adigana farsamadiisa iyo khibradda Ilaahay uu siiyay aad ka iibsanayso, qofkaas aad isku danaysanaysaan, marna lagama yaabo in aad adiga ku baryayo. waayo haddii shaqadaas uusan kuu qabanin, adiga lacag ma siinaysid, adigana lacagta wuxuu kaaga helayaa shaqadiisa iyo khibradda Ilaahay uu siiyay. marka ninkan booska ah ee shirkadda iska leh wuxuu ahaa nin shaki iyo kibir isku darsaday. runtii kibirkan ma fiicna. Ilaahayna mar walba diintiisa uu noogu sheegay qofka haddii wax yar oo kibir ah qalbigiisa uu ku jiraan inuusan naxariistiisa in yarba ha noqotay uusan helin. laakiin dadkan gaalada ah mar walba way iska jecel yihiin inay iska kibraan, inay ishaad qaadaan, isna moodaan inaysan dunida marna ka tageen. dunidan maalmo kooban ayaan joogaynaa, waa inaan u dhaqannaa dad safar ah oo sahaygooda qaadanaya. marka ninkan wuxuu ahaa nin isqaadqaad badan oona shaki badan. ninkii shakigiisa iyo isqaadqaadkiisa muxuu ku keenay, maxaana ku dhacay? runtii ninkii oo shaqaalaha ugu sareeyay ee booska uu ahaa, waayo shirkad walba waxay leedahay shaqaale nin ayaa boos u ah. booskii oo shaqada lahaa markii laga soo tago, shaqaalaha waxay leeyihiin kaaba shaqaale. ninkii kaaba shaqaalaha ayaa dhahay, ereyadaasoo kale uma qalmaan, waa shirkaddan magaceeda waxaa kor u qaada dadkan haddaysan ahaan lahayn shirkaddan marna lagama yaabeen inay hal maalin shaqayso. shirkaddana dadkan muhiim ay u yihiin, waa inaad sida sharafta ay leeyihiin kula dhaqantaa. ninkii wuu xanaaqay, wuxuu shaqada ka saaray ninkii shaqaalaha ugu sareeyay ayuu dhahay, fasax ayaa iga tahay, shaqaalahaygii anigana cid noo dhexin karta ma leh, dadkan waan ka sareeya iga liitaan. runtii asiga ninka shaqaalaha ku-xigeenka ahaa awalba nin shaqaalay u ahaa, shaqadu isaga tegay, laakiin fariin cajiib ayuu dhaafay.
wuxuu dhahay adiga sida isku qaadaysid waxaan ku tusayaa in aad aniga shaqaale ii noqotid ninka dhahaya ereyadaasna nin wax meel ku og maahan nin oo maanta hanti meel u taala maahan laakiin muxuu ku tiirsan yahay muxuuna kalsoonidaas ku helay wuxuuna hadalkaas ku dhahay ninkaas wuxuu ahaa nin muslim ah oo ilaahay aaminsan oo ilaahay wax walba inuu siin karo aaminsan ayuu ahaa ninka meesha lahaana wuxuu ahaa nin gaal ah oo nin ilaahay aan aaminsaneen oo diinta aan aaminsaneen islaamka saxda laakiin ninka dhahaya waxa igu balan ah ilaahay ayuu kalsooni ku qabay inuu wax walba u sameyn karo uu sareysin karo ninkan sareysinayna ilaahay uu hooseysin karo ninka shaqadii uu ka tagay dhowr sano ayuu ninkan dabeecadaas shirkadiisa ku waday marba shaqaale ayaa ka tagayay marba shaqaale ayaa ka tagayay ugu dambeyn meeshii waxa laga waayay cid ka shaqeysa oo u dulqaadata waxa ku soo hartay asiga iyo dhowr qof oo ay qaraabo dhow yihiin ayaa shirkadii ku soo hartay wayna awoodi waayeen in ay shirkada sii wadaan shaqadeeda oo qandaraasyada ay helayaan iyo awoodda shaqaalaha ku soo haray meesha ayaa iskeeni weysay ugu dambeyn shirkadii albaabada ayaa la isugu dhuftay waayo kibirka dhibaatada uu leeyahay aan ka hadlaynaa moogtahay sheekadan iyo qisadan waxaan u soo qaadanay dadka booska ah ama shaqa ama badrooniga ah ama loo shaqeeyo in ay kibraan dhibaatada ay leedahay ay ka hadlaysaa sheekadan waayo qofku ku shaqeynayo xuquuq ayuu leeyahay adigana xuquuq ayaad leedahay maahan inaad iskibrisid inaad iswaashid inaad isku moodid qof walba inaad ka sareysid hal shakhsi ama hal qof ama hal ayaa dadka sareen kara waana Allah cid kale oo ka sareen karta ma jirto qofkan adiga kuula shaqeynayana bariyo kulama joogo wuxuu kuula joogaa khibradiisa awoodii Ilaahay uu siiyay iyo wuxuu Ilaahay baray adigana lacag aad haystaa asigna khibrad ay u haystaa wax baad kala iibsanaysaan cid isbariyayso marna ma jirto marka shaqadii iyo shirkadiiba albaabada ayaa la isugu dhuftay ninkii wuxuu gaaray in uu shirkadaha waaweyn waa nin magac leh shirkadaha waaweyn uu qandaraasidii uu soo qaato uu geeyo shirkadaasna uu xoogaa lacag ka qaato ayuu gaaray asigoo shirkadiisa ay joogto laakiin dabeecad uu shaqaalaha kula shaqeysta ayuu waayay ugu dambeyn ninkii qandaraasidii si uu asiga loogu keenayay uu la saxiixanayay shirkadaha kale uu shaqada uu siinayay xoogaa lacag uu qaadanayay ugu dambeyn dadka qandaraasida uu siinayay wuxuu ka qaran jiray shirkadda inay shaqeynayso ayuu dadku ugu sheekayn jiray balse ugu dambeyn waxay ogaadeen ninkan shirkadiisa inay albaabada ugu dhufsay oo wax shaqo uu shirkad u furaysan jirin laakiin sida ay tahay uu weli qandaraasida shirkadaha kale uu geeyo dadkana uu isaga dhigo inay shirkadiisa soo saartay ugu dambeyn shirkadihii way ogaadeen ninkan inuu wax faraha ku haynin wax jira uu ahaan wax uu hayo aysan jirin qandaraasidii waxay la beegsadeen shirkadihii ay kale yaa kamid ah marka shirkadaha ay la beegsadeen ninkii kaabashaqaalaha ahaa ee uu ceeriyay uu shirkad yar uu samaystay Ilaahay ku aaminay ay qandaraasidii u dhiibteen intii shirkadii way kala kacday waxay noqotay shirkad caalami ah Ilaahay u baraariyay u barwaaqeeyay maalin maalmaha kamid ah waxa dhacday ninkii shalay shaqada ka soo ceeriyay oo shaqo doona markaan asaga cilmigu lahaa laakiin cilmigiisa awood uu shaqaysto ma haysan way dabeecadda ma lahayn oo dadku ugu la shaqeeyo laakiin markaan dan ayaa ku kaliftay asiga inuu shaqo tago oo noloshiisa dibirto marka maalin maalmaha kamid ah waxa dhacday asigoo shaqo doon ah ayuu soo aaday shirkadaha wuxuu maqlay shirkad cusub oo kala kacsan in la furay wuxuu iska dhaadhiciyay shirkadda haday cusub tahay cilmigaaga iyo khibradaada u baahan tahay waa inaad ka qayb gashaa oo shaqada aad doonataa wuu soo baxay shirkadii ayuu yimaaday wuu soo galay xafiiskii agaasimaha shirkadda ayuu yimaaday wuxuu dhahay waxaan rabaa waa kan CV-gayga ama shahaadooyinkayga waxaan rabaa inaan shaqeeyo oo shaqo tag ayaan ahay waxaa la waayahay waan ku soo dhaweynaynaa booska markuu yimaado xafiiskiisa ugu tag halka iska fariiso ugu yaraan wuxuu fadhiyay 3 saacadood ayuu fadhiyay booskii ayaa yimaaday wuu galay xafiiskiisa alarmigii shaqaalaha xoghayaha ayaa loo soo yeeriyay dadka balansan ama dadka isuga soo gudbi ayaa la dhahay ninkan magacyada ayaa loo soo yeeriyay magacii uu gartay ninkii uu shaqeyn jiray inuu yahay wuxuu dhahay ninkaas si qaas ah inuu qaabilo
isoo gudbi wuu soo galay ninkii qaracan ayaa ku dhacay wuxuu dhahay war maxay tahay adiga booska meeshaan miyaa tahay weli kibirkii ayaa ku dambeeyay wuxuu dhahay hadaa tahay shaqadoon shirkadan inay ku shaqaalaysiiso diyaar ayuu tahay hadalka badan iska yareey laakiin shuruudo ayaa horyaala shirkadan hadda shirkadan adiga shuruudahaas ka bixi kartid wad ka shaqaynaysaa hadii kalena shaqo kuma hayno marka waxa uu dhahay maxay tahay shuruudaha wuxuu dhahay meeshaan cid ka sareyso oo shaqaale ah ma jirto shaqaale walba isku xuquuq booskana wuxuu la mid yahay dadka shirkadda kor u qaadaya hadal wanaagsan ayaa laga doonayaa waqtiga inaad ilaalisaa daqiiqada dad ka soo dhibacayna mushaarkaaga ay ka jaran tahay ma jirto qof ku qaylin kara ma jiro qofkii qof ku qayliya ama qof isku taagtaagana mushaarkiisa ay ka jaran tahay intaas dad ku shaqayn kartid waxaan ku ballan qaadaynaa inaad weligaaga meesha ka shaqayn doontid aan cid kugu mashquulsho ama cid kugu qayliso ama cid ka sareysiisa aysan jirto ninkan wuu la yaabay wuuna dareemay in uu markii ninkan shaqada uu ka soo ceerinaa uu ku khaldanaa balse wax walbo waa wax soo dhaafay waqtigii hore dhamaadayna dib looma soo celin karo ugu dambeyn ninkii wuxuu shaqaale u noqday ninkii uu shaqada ka soo saaray uu dhahay shaqada isaga tag maanta ay taagan tahay xaaladda 2021kana wuxuu shaqaale ka yahay shirkadii ninkii uu soo ceeriyay shirkadii uu dadka ka soo ceeriyayna dib waxa uu iibsaday qalab ahaan ninkii uu shaqada ka soo ceeriyay almuhim ninkaas maxaa noloshiisa burburiyay maxaa sida u galay waxa sida u galay kibirka ishakiga uu noloshiisa ka qabay isqaadqaadka ilaahay uu sheegay qofkii bini'aadanka waxay kibir haday ku jiraan inuusan naxariistiisa marna helin marka waxaan ku leeyahay shaqada maahan inaad shirkad u shaqaysid mana aha ninkan inuu shirkad kala shaqeeyo ama shirkad aad leedahay shaqo walbo aad qof u dhiibtid waa inaad xuquuqdiisa ilaalisaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.